kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada sheeko la magac baxday dalxiiska caashaqa. Sheekadani waxay ku bilaabanaysaa 5tii galabnimo ayay si kedis ah u kulmeen Khalid iyo Hoodo oo ayagu ahaa arday isla dhigta jaamacad, isla markaana waxa ay ku kulmeen hotel oo Khalid ka shaqayn jiray oo ka ahaa waiter ama mudalab. Khalid wuxuu ahaa wiil aad u wanaagsan, wuxuuna kamid ahaa ardayda loogu jecel yahay jaamacadda. Wuxuu ahaa bulshaawi danyar ah balse kama muuqan qalbiga ayuu qani ka yahay. Khalid gelinka hore wuxuu tagi jiray jaamacadda, halka gelinka dambana oo shaqadiisa aadan jiray oo hotelka ka shaqayn jiray. Hoodo marnaba kama aysan filaynin halka ay ku aragtay Khalid, balse waxay ku qashoocday sidoo isku kalsoon yahay una ilaashanayo shaqadiisa iyo waxbarashadiisa. Inkastoo marka hore qalbiga iskala hadashay oo ay istiri Khalid muu iska ka qariyo, Khalid wuxuu aad ugu faraxsan yahay aragtida Hoodo, wuxuuna u arkay inay tahay fursad dahabi ah, sababtoo ah wali Khalid uma uusan soo bandhigin ujeedkiisa uu doonayo Hoodo. Khalid wuxuu isku dayay inuu Hoodo u sheego arrinta uu ka leeyahay uguna muhiimsan, balse jaaniskaasi beerdareeyay Hoodo habriirteeda oo la socotay siina diiday fursad oo Khalid ugu sheego Hoodo. Hoodo waa gabar qurux badan, akhlaaq wanaagsan, xishood badan, afgaaban, isla markaana waaridkeedu ku koriyeen barbaarin iyo tarbiyeen wanaagsan. Waxay ka mid tahay gabdhaha ugu asturan jaamacadda, uguna firfircoon, uguna ixtiraamka badan. Koox Khalid oo kamid yahay waxay abaabuleen ardaydu inay u baxaan dalxiis, sidaa darteed Professor Aadan arrintan uu u ansixiyay wuxuuna ogolaaday dalxiiska. Abaara 5tii subaxnimo ayaa Khalid u kacay tababushaysi iyo isdiyaarin isku diyaarinayo dalxiiska la magac baxay dalxiiska caashaqa. Waa koox dhalinyaro ah isla markaana ku buhoobay jaamacadda, wax ay wada dhigtaan jaamacadda, waxayna ka kooban yihiin 15 wiil iyo 10 gabdhood. waa dalxiis si farshaxanimo loo soo diyaariyay, waxaana kooxda dalxiisayaasha hogaaminaya barofesorka iyo macallimiinta jaamacadda qaar kamid ah. Dhammaan kooxda aad ay u xiiseynayaan dalxiiska, waxayna inta badan sugayaan waqtiga la baxayo. Waxay u xiiso qabaan damaashaadka ayna ku tagayaan halka ay ugu tala galeen. waxaa diyaar ahaa gaadiidka ay raacayaan oo ka koobnaa bas iyo langaruusal. Waqtigu waa dhulku aad ayuu u roobsan yahay. Goobta dalxiiska loo tagayo waa dhul badanaa dadku u dalxiis tagaan, waxayna caan ku tahay bad, buuro, durduro iyo dhul cagaaran oo geedo leh. Saacadu markay tahay 6 subaxnimo, qof kasta heegan ayuu ku ahaa kursiga gaadhiga. Professor Aadan marka uu hubsaday inuu ardayda ay dhan tahay ayuu fadhiistay kursigii loogu talagalay. Saacadu markay gaartay 6:30 daqiiqo oo subaxnimo ayay amba bixeen kana tageen magaaladii ay ku sugnaayeen. Dhammaan dalxiisayaashu aad ay ugu faraxsan yihiin dalxiiska. Inta ay jidka ku sii jireen, waxay gudaha baska ku bilaabeen hadallo kaftan. Dhammaan dhalinyarada waxaa farxadooda u dheeraa labiska quruxda badan ay xiran yihiin. Muddo 3 saacadood ay ku qaadatay inay gaaraan meeshii u socdeen. Markay dhammaantood dhulka cagaha dhigeen, waxaa indhaha ay la raaceen muuqaalka yaabka leh dhulka uu leeyahay iyo neecawda macaan ee ka soo baxaysa. waa goor barqa ah, joogu aad u macaan yahay. Professor Aadan wuxuu ku wargeliyay in ay fasax yihiin ay bilaabaan dalxiiskooda. halka hanoo joogto qaybta koowaad sheekadii dalxiiska caashaqa. intaan qaybta xigta kulmi doona sida ay nabadgelyo. leegta, sheerta iyo commentigana waa dhankiina.